qorto is oran isba hada Soomaaliga raadi ma erigaas wuxuu yahay laakiin kelmad Ingiriis haday ku soo baxdo oo vocabulary hore ku jirin markiiba dictionary hore ugu calanaysa yes or no marka taana waxa keenay waa maxay marka afafkii kala ayaan had iyo jeer mataqaana maxay aan ka fadilayna marka maxay afkeen waxa kale ku jira 20,000 oo mahmaahood baa ku jira waxa ku jira 1,000 sawir oo aad iyo aad u qurux badan oo ereyada qaar kood xataa sawirada ay soo qaadeen siday ugu qurux badan yihiin yaabayso waxa kale ku jira 1,000 magac Soomaali oo qofkii rabay inuu xataa magac uu bixiyo xaga soo magac uu soo saari kara qaamuuska marka Soomaal wuxuu marka ma saxeed uu dhaxad u yahay midhaha ujeedooyinka macadka marka afafka ee laga asaasay magaalada Djibouti waxa la oran karaa marka waa kaydkii ugu mug weynaa marka ee af Soomaaliga laga qoro kadib burburkii akademiyada dhaqanka ee Soomaaliyeed oo wasaaradda tacliinta sare ee ka tirsanaa jirtay waxa uu qaamuuskani marka dhameystir u yahay dadaalkii dheeraa ay soo galeen raggii markii horeba iyagu ku dadaalay inay marka maxay u sameeyaan qaamuusyo kuwaas oo kamid ahaa Yaasiin Cismaan Kanadiid oo sameeyay marka maxay qaamuuska u horeeyay oo Soomaali isku tarjumayay marka maxay ahaa marka maxay in Afrika Waddankii Saalax Ma Saxaash Carab oo isagu marka Malaysia isagu ku daabacay 2004 oo isagu marka labadiiba sameeyay kii ahaa ma saxay Ingiriis Soomaali iyo Soomaali ma saxay English oo labada ma saxay isku fasiraya labada dhinac waxa ka dambeeyay Cabdalla Mansuur Umar Cabdalla Umar Mansuur oo waliba ma saxay isagu hadda Italy buu wali ma saxay degan yahay marka akademiya Italy laga sameeyo Soomaali Sadiska halkaas ay isaga ma saxay gabar Talyaaniyada ay runtii iyaguna ay ku sameeyeen ma saxay Rome 2012 waxa kaloo jiray isagana Khalid Ali Guul warsame oo isaguna Nairobi ku sameeyay qaamuus dabo isagana ma saxay 2008 marka labada qaamuus qaar uma hadda ka soo qaaday kan marka ma saxay English Soomaaliga waa marka ma saxay uu sameeyay ma saxay Naxaash Carab uu sameeyay kan kalena waa kan Khalid Ali ma saxay Guul warsame oo Nairobi ku daabacay ma saxay 2008 qaamuuska marka Soomaal wuxuu marka uu dhaxal u yahay midhaha ujeedooyinka macadka afafka loo baasay Djibouti qaamuuskan waxa la oran karaa marka waa kaydkii marka ugu mug weynaa afka Soomaaliga runtii oo kaan horaba saan u sheegay marka qaabka iyo farsamada marka ururinta 70,000 eeray ee lagu soo qoray qaamuuskan Soomaal waxay ahayd marka saddex waji oo ah saddex soo socdo kow waxa la isku dayay marka inuu qaamuuskani uu ka maqnaanin eray ku qoran qaamuusyadii hore oo dhan marka qaamuusyadii hore ee ka horeeyay waxa lagu xil qoray oo dhan erayadoodii oo dhan waa la soo wada qaatay u dhan midna laga soo tagay laba waxa aqoon-yahanada Soomaaliyeed marka loo kala diray mowduucyo si gaar ah loo doortay si ay marka uga soo ururaan marka erayada ku haboon ururinta guud oo marka dadka ma dadku dhan aanay wada garanayn sida marka maxay dhirta oo kale way dhirta oo kale dad baad takhasus u yaqaana dhir waliba geed waliba mataqaana magaciisa iyo mataqaana magaca uu yahay waxa kale oo marka ma saxeeday loo doortay oo kale ma kamid aha in ay ma saxeeday laga eego dhinaca xataa aqoonta waxa marka ma saxeeday science iyo waxyaabaha marka ma saxeeday raacay waxa ugaadha iyo qalabka ma saxeeday ama dadka ma saxeeday ay wax ku dabtaan ku ugaarsadaan iyo qalab farsamo oo dhan nooc doonaba haade saddex waxa kale oo marka la adeegsaday suugaanta Soomaalida iyo diiwaanada marka gabayada ay qoreen ama sameeyeen abwaanada marka qaar kooda ka soo qaadanay oo ah مثلا diiwaanka mataqaana maxay halkaraan uu hadraawi sameeyay ereyada ku jira waad garan kartaan ereyo badan baan ilaa maanta cid ma tahay isagu ku fasira mooyaan iyo daynaad marka qaamuuskan hadda weyn ee marka la qoray inaad ka baadha mooyaan aanad marka si sahlan aanad ku heli karay gabayadii sayidka oo kale oo iyagana mataqaana maxay ilaa maanta laftarkooda mataqaana maxay saas iyagana cidna aanay maxay si sahlan ay u fasira karin silsiladii marka deelay iyo siinlay oo socday الله نحن حاج هذا الماس هذا الله الماس هذا ماسوين كيسي أردن تمعد سجل الله نحن ماسوين كيسي أردن عبد القادر حس يم سجل ماسوين كيسي أردن يدو ذا نو مسك هذا يسوي ده ومن رجوا يسوي مك الله نحن ماس هذا ما أنت ماس هذا كل كاس ديسمبر لو قطي جيبوتي هي إسماعيل مرؤوس مك ماس هذا يسوي ده أبدوله ماس هذا وقت يسيس كبير يسنو قرية خمسة آدي هذا قيمة بدنا كوا ميران خاصة ولي مركز دمر وحلا نحكي لمركز روايته وحلا وحي روايته الصومالي السماعي ونكسام راني لما كسو قاتل المسك عن حيدي شبه العوض وكله وما أعرف حسن شبه بنا الله نحس يسلم مركز السماعي ومركز دمر يدو ده
دكتور جوش ما سوى ما حيدا وكبد لي ما حيدا جامعة أوكسفورد يونيفرسيتي إن إنجليش ما حيدا لو بدل يدا دم ومن نقضي وقت يوم جوجي روايده ما حيدا وقيمها بدرت وحكونا كاس مركز في عن لو ولا فقوري مركز عرمها هو اسمه حسن وكنت حلقة مركز هي قلت أفكار سومالي إنك صوري جوتي أكو قصنون ونروح ويا نديكو ما تقولن كلا مرتجلي هذين مجالات ما كان نحمرنا هل بول أو مجا سومالي كوكورين وكوين سؤال قبل مركز تصرف وين هذه جروح أنت عنا هي مثلا حياة بدك زوج جديد اليوم قرن ما مجا سومالي هذه وحلو ورطت فينا لما تواركي حمر بقى واجي مركز محيا ذي مرشير له قبل هي مالت هذه الدولة عرفتها بقى لما كان في أمر وحكوا بيحيي وحيل هذين وحلا وحا إيريا كقرتين في صوماليا في عربي هو سنة كقرة مركا تاسم حاجة كانت مركا دايركت ترانسليشن مكان لو سميه مركا يا تمجريه يا متمحير كيف حقوق قري قاعد على الراس بحقوق قري ما قالت بار من جبحث بحقوق قري مشي بحقوق قري بار ناحية نفط هذا بحقوق قري سمي نفط هذا بحقوق قري هذه هو حلا وقول نفتج محله وقف كل مركا مقال الحمر وان داود النسان اليوم هو واخدينه sababta waxa weeye wax ka qosliyo ma ahayn wax kale oo darkiisa marka ma jiro runtii taa marka waxay keentay marka koow digaalka marka xarunta marka maxay xuruufta la raacay macnaha ereyada digaalka marka dhawaaqyada isku aadee sida hadda ma sarxeeyay professor nuux ka hadlay taada iyo shaada had iyo jeer il marka leedahay ishana waa darkiisa il iyo isha marka taadi iyo shaadi labadii had iyo jeer hadallada ma isla raacayaan hal hasha marka leedahay marka waxay caloosha waxyaabo caynkaasoo meedhano mataqaan maxay xuruuftaas si fiican lugtoodii looga wada hadlay daada iyo taad oo kale qaatay gaada iyo kaad oo kale sog ama sokeeyo oo kale dhacda iyo raada gabadh iyo gabar ma had iyo har marka waxyaabahaas maxay caynkaas oo ma maxay dadkii badan loo wada arkay inay mataqaan maxay tahay wax iska caadiya iyo wadareynta falka iyo tilmaamaha gabagabadii marka kulankaas oo aad runtii u qiimo badnaa dadka ka soo qayb galayna aad mooday in wax alla wixii adiga uun af Soomaali shaqo ku lahaa hadduu abwaan yahay hadduu gabayaa yahay hadduu mataqaan maxay buugaa ku qoray cid alla cidii marka uu kuseynayo dhanba waa la isku wada keenay waaga Djibouti runtii oo waxaad moodaa inaan wax ka maqlaaba aan jirin dadaan isarag mataqaan maxay 20 sano ku dhawaad ayaa meesha isku wada yimid ayaa marka waxa la isku raacay marka lahjadaha sidii lahjadaha looga baxsan lahaa ولهجة قفوا ولو لو دينها لكن وحكم مرة ومدة كده حية ما دام اللغة ده ينتهي وحكي يسكت بين حري إذا اللغة ده واحدة حتى صوماليا توصل وتيجي جزء اللغة ده هو مدهم مدة صوب بها المركائين سوى البدارس على وضع هذا لكن وين فاهمين ويمكن مركز ما تحيي أفهمي وكلام مركز يكون هذا يعرف كذا هذا مكان هذا يسوي تماسك لو فاهمين وترى تماسك مع هذا الشيء مثلا عبد الولي وكلام وبار يعرف كل شيء سجى مركز وش هي لما ديما إنه ما أنت بتقال حيد فلوس وما في حيد وهذه كم لغة لكن كنت مركز شيء ما في حيد عشانه ودي وقت يعني جوني بهاي لبية تضباط كي مركز القرية قرية ده اللي هي الجريء إلا إيه تضبية تضباط كي شن تاسع نضوج بحكوس عتي حول أدوين وأدو قيمة بدل دجالة يتوبية تضبية تضباط كي مركز دعين مركز أو دقاليه أو دني مركز أو قليل متقال حيد ما في حيد هالكاس أيه واحد كانت مركز إنه أفصالي مركز هوس دقيقتين دوا كان ما تعبانه مركا بحيث ميل لو هذا هيابو سكيري afkeeni oo marka ma saxay la burburay dagaaladii sokeeye oo ka dhacay marka bixida wadankeeni hooyo iyo afkeeni oo naxashka saaran marka maanta naxashka ma garan taban marin waa kamidka lagu qaado marka naxashkii buu maanta saaray okay afkeeni naxashka wuxuu ku saarmay marka waa wuxuu ku saarmay waa maxay waa markuu qurbiyi soo galay وما تعرفوني waxa weeyaan marka maxay idin hadii ilmaha guriyaha wacdo oo ilmihi telefoon uu ka qabto oo tiraado waraaba ma jooga soo marka wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo abo he is laying down on the bed soma sariirtu saaran yahay inuu leeyahay okay what that translation marka waxyaabihii waxa iskaga khaldan marka deebitaan waa maxay feminaanka iyo maskuulaanka inuu iskaga khaldan lad iyo dhidigii baa iskaga khaldan hooyo wuxuu ku yiri booranay hooyo wuxuu ku yiri oo waxay tiri meeshu ku oran lahaa marka waxa way taasina waxay keenaysaa waa maxay xiriir waalidkii iyo ilmihii oo luqadii ayaa meesha ka maqan iyo waalidkii oo qaarkood ay ka xishoonayaan inay mataqaan maxay ESL-kii tagaan dibatan iyagii caruurtii ka dhigeen ESL marka oo ilmihii baa macallin marka
marka la wada hadlayana waalidkuna ilmaha uu fahmaa ilmuhuna waalidka uu fahmaa waana la wada nool yahay laba luqadna waa lagu kala hadlaya waa markaa ka hadlay maxamed warsame uu leeyahay oogada saratiya akhlaaqdii lahaanteed af iyo diin ilmuhu waalidku waa kaadaay haddaan lays afgaranayn dhashii waa ajnabi una ma tahay ma foster family kama duwanide ma yaro waalid dad loo keeno wax loo hay ya ma foster family weeyaa marka ilmahan adaa ka dhigay marka ilma ajnabi inaad korsanaysa marka inkastoo aqoonaan barno idinta loo sheegay ummadda u macallin dadka ay wadahay ingiriis wixii kula hadlay ehel wadaagaare u badan ku waagay hayna babi Soomaa marka ilmihii adaa riixay waxaad ku riixday waxa weeyaan rules and regulations ka siin lahayd oo lahayd gurigayga markaad soo gasho maadaama anigu aan ku masruufayo oo lacagtaydu cunayso oo dharkaygii aan ku iibiyo aad xiranayso aqalka markaad soo gasho Soomaali waxaan haynin kula mahdi kartid miyaa tirtaas هاي مان بقولي يس مان بدن ها هو هاي يس كان ماشي السلام عليكم سو كبر يسوي يس كبر هو يوافق علي هو ما تحضر كلنتي ماشي اب سومالي اسكو ريتن لها waxa la galay marka in de hooyanay chance ki ka faa'iideysto tiraado ruuxooga ingiriiski ka xuma hagaajin marka taasna marka caawa insha Allah waxaynu ka gali doonaa nadwo waxa rabaa wali soo jeedinaya inaan joogto ka dhigno ee aanay noqon caawa kaliya ka inaan ku kala tagno xusku waa maalintiisa